ballaaran oo ay soo qaban qaabisay jaamacadda Najaax oo maalmihii ugu dambeeyay ka socday magaalada Burco ayaa lagaga hadlayay dhibaatada ay bulshada ku hayso aaladda tiknoolajiyadda. kulankani ay ka soo qayb galeen culimaadudiinka kala socotay gobolada dalka iyo ardayda dhigata dugsiyada Qur'aanka Kariimka ee magaaladani Burco. xidhitaankii kulankani ay goobjoog ka ahaayeen barasaabka gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiinta jaamacadda Najaax ee magaalada Burco. intii uu kulankani socday waxa uu ku dheeraaday ahmiyadda uu kulankan u leeyahay bulshada. gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Najaax ee magaalada Burco Dr. Xasan Cali Warsame iyo gudoomiyaha jaamacaddaasi Dr. Faysal Maxamed Cali, gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibraahin Aadan Qabo oo isna kulankani soo afmeeray ayaa amaanay mas'uuliyiinta jaamacadda Najaax kuwaas oo ku amaanay kaalinta mugga iyo miisaan kale ay kaga jiraan bulshada ku dhaqan gobolkani Togdheer. waxa lagu talinayaa oo ka soo baxay shirka lagu talinayaa in waxa weeye mashaakil ina haysta bulshada haysta ee ka dhalanaya in la isticmaalo tiknoolajiyadda la isticmaalo qaybaheeda kala duwanna waxaynu uga jeednaa internetkii oo qaybo badan leh, hadday tahay Facebook, hadday tahay Twitter, hadday tahay Instagram, hadday tahay Skype iyo qaybaha la midka la isticmaalo WhatsApp iyo wixii la mid ah wasaa'isha noocaas ee internetka loo isticmaalayo, hadday tahay website-dada, haddii ay tahay waxyaabaha kale lagu wada xiriiro telefoonadii iyo jawaaladii ayaa waxa weeye la mid ah TV-yadii iyo fiidiyowyadii iyo waxyaabaha la midka iyo waxay tabinayaan ayaa iyaguna la mid ah mashaakilka ay bulshadeenna ku leedahay ama waddankeena ay ku hayso si gaara in loo sii eego. mawduuca noocaas waa lagu taliyay dadkana loo iftiimiyo oo loo cadeeyo oo waxa weeye loo bayaamiyo, hadday tahay nadwo, hadday tahay seminar la qabanayo, hadday tahay muxaadaraad laga jeedinayo, hadday tahay wacyigelin guud qaabab kala duwan bulshada qaybaheeda kala duwan lab iyo dhadig dad waaweyn iyo dhalinyaraba nooc walba in la gaarsiiyo waa talada lagu taliyay. qadiyada labaad ee lagu talinayaa waxay tahay wasaa'ishu maadaama dhib iyo dheefba ay leedahay wasaa'isha noocaas in lagu wada xidhiidho in waxa weeye dadka lagu guubaabiyo oo loo muujiyo qaybta wanaagsan ama dhinaca wanaagsan si looga faa'iidaysto. iyadana insha allahu tacaala aad baa loogu talinayaa. wacyigelin bay u baahan tahay dadka in lagu wacyigeliyo qaabka wanaagsan inay u isticmaalaan. waxyaabaha lagu talinaya waxaa ka mid ah dadka isticmaalaya tiknoolajiyadda cusub in iimaankooda la dhiso, ruuxdooda la dhiso si ay isaga caabiyaan waxyeelada ka soo gaadhaysa xagga diintooda, caqiidadooda, fikirkooda, dhaqankooda iyo waxyaabaha la midka ah ee bulshadu waxa weeye ay leedahay. waxaynu maanta u joognaa sidii uu inoo faahfaahiyey Dr. Xasan Sheekh Cali gunaanadkii muctamarkii ama multaqihii socday labada cisho ee ay soo qabanqaabiyeen ama ay ishraafayeen hay-adda caamka ah ee la yidhaahdo alqarni alifriiqi alkhayriya oo runtii ah hay-aday bulshadu wada garanayso, xukuumad iyo shacabba la wada garanayo, midhaheeduna runtii waxa weye waddanka si fiican u saameeyey oo madaxdeedii qaar ka mida ay nala joogaan. iyaga bacdallahi caza wajal sababuu ahaa in borogaraamkan ama arrintan ama multaqahan in la fuliyo oo la qabto, iyagaa sabab u ahaa. jaamacatu najaaxna maadaama ay tahay hoy cilmi bulshadana wax badan u haya doonaysana inay bulshada wax badan ka bedelaan oo wanaag badan ay u horseedaan ayay waxa weeyaan qaadatay mashruucan si ay u fuliso. wadan ama debate runtii aad iyo aad baan ku soo dhawaynayaa. waxaan dhiirigelinayaa maamul ahaan, gobol ahaan iyo dowlad ahaan maamulka wakiila inaynu badinno oo aynu intan oo keliya inaanaynu ku eeganin al-Najaax lagu daydo oo jaamacadaha kale laftooda ay diyaariyaan, waayo waa arrin u baahan si specifica si cad inaynu u abaarno. waa midi laba afle positive iyo negative labada wada. jaamacadda Najaax ayaa ka mid ah jaamacadaha ugu tayada fiican dhinaca aqoonta Soomaaliland ee ku yaala magaalada Burco. Maad Faarax, shabakada caalamiga Odweyne News magaalada Burco.